maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya qaabab uu dib ugu soo nooleeyo xiriirka dalka Eritrea oo ah dawlad inta badan go'doonsan isla markaana maamusha gacan weyn oo istiraatiiji ah oo dhaca xeebaha badda cas. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump, Mossad Boolis ayaa u sheegay diblomaasiyiin shisheeye in Mareykanku uu qorsheynayo inuu bilaabo qaadista cunaqabataynta saaran Eritrea oo ah dal yar oo dhaca geeska Afrika lehna xeeb dhererkeedu ka badan yahay 700 mayl oo kulaala badda cas. Tallaabadan ayaa sida ay sheegeen saraakiil hore iyo kuwa hadda joogaba oo xogagaal ah qayb ka ah dadaalo uu maamulka Donald Trump ku doonayo in markii ugu horeysay muddo 10 sano ah dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee heerka sare ah ee labada dal. Inkastoo qorshahan uusan weli si rasmi ah u dhammaan, saraakiil kale ayaa xaqiijiyay in qiimeyn lagu sameynayo sidii loo caadiyin lahaa xiriirka cunaqabatayntan looga qaadi lahaa dalkaas Eritrea. Dadaalkan diblomaasiyadeed ee Mareykanka ayaa soo ifbaxay xilli kooxda Xuutiyiinta ee Iran taageertay ay ku hanjabeen inay xidhi doonaan isku socodka maraakiibta mara badda cas. Tani waxay barbar socotaa isku dayada xukuumadda Tehran ay ku doonayso inay go'doomiso ganacsiga marinka Hormuz tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca iyo Jamhuuriyadda Islaamiga Iran.